uguuro ama aan ka mid noqdo dadkan loo yaqaano dadka duurjoogta ah ama maxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa cawaanta. marka deeqay yaraqii noloshan kadeedka inaad ka baxdid oo dadka cawaanta aadid maxaad ula jeedaa waxaan uga jeedaa walaalow waxa weeye horta waan ku sheego ku iride nolosha hadda halkan waa nolol bila xasilooniya marka waxaan ka doorbiday nolol kale oo ka yara degan oo maaragtay bila buuq ah oo intan hadda calaamadahan anigu hadda aan soo sheegay oo dhan ay ka madax banaan yihiin marka waxaan go'aansaday inaan ka mid noqdo dadka loo yaqaano dadka cawaanta ah ama baadiyaha ku dhaqan oo bila macnaha waxyaalahan hadda aan sheego dhanba dee aan arki karin marka sheekadii anigu waan sii watay go'aankaygii waan ku sii adkaystay waxa dhacday markay walaalo Cabdixafiidow inaan aado inaan qiimeeyo horta xagan ka heli karaa marka xagee macnaha waxaan ka suurtagali karaa waxaan hadda maskaxda iiga jirta oo iiga guuxaysa xagee ka suurtagali karaa adigu sheekadii sii waday waxaan marka hadda ka hor aan dhowr jeer tagay dalka Indonesia ayaa waxaan tagay dhowr jeer marka dalkii markaan dhowr jeer tagay ayaan ka helay waxaan ka helay macnaha dadkooda miyiga kale waa dad free ah oo maaragtay dhulkuna waa dhul qurux badan marka meeshaas horta waxaan isla aleelahay noloshan aad sheegaysid oo degan oo bilaa buuq ah oo maaragtay qofku duurkiisa isaga jiro oo laba maaragtay caleen midna hoos lagu xiranayo midna kor lagu xiranayo oo aan maaragtay lahayn koronto iyo balaaye iyo cunno maaragtay wax lagu soo daray iyo waxaas aysan ka jirin oo dee natuur ah marka aniga horta taasaan maskaxdayda geliyay deetana waxaa dhacday inaan maaragtay dadaal badan u galo oo maadaama dhulkaas aan jeclahay Indonesia oo hadda ka horna aan tagay ayaa waxaan sameeyay inaan maaragtay sii wado oo dhulkii tago oo bal at least wixii iiga suurtagali karaa laakiin waxaan maskaxda haddana ku soo dhacday de kaliga meeshaas ma aadi kartid way kugu dhib badan tahay de qof kaligiis meeshii aaday ma taqaanid maxaad samaysaa marka waxaan markaa haddana doorbiday inaan lamaano yeesho lamaanihii marka halkan haddii aan iraahdo qof halkan jooga ama meel kale jooga inta kaxeeyo ayaan maaragtay u geynayaa maaragtay dadkaas cawaantaasaan ka mid noqonaynaa way nagu adkaanaysaa marka maxaan sameeyey waxaan doorbiday in aan meeshii aan ka helo lamaane in aan anigu ka helo taas ba haddana sii adkaatay maxay ku adkaatay waxa weeyaan dadkii aad ba waxa u adag in lala kulmo dadkan maaragtay duurjoogta ah si loola xiriiro in lala kulmo waxaasoo dhan aad ba u adag tahay adigu juhdi badan iyo arrimo badan baa meeshii maaragtay aan runtii xooga saaray ilaahay amarkiis wax walba way yara fududaadeen inkastoo aysan fududayn laakiin haddana somehow maaragtay waxbaa suurta galay waxa dhacday marka walaalo in aan dad meeshii maaragtay dadkaas inaan la xiriira u baahanahay muddo badan bay qaadatay runtii qarash badan wax badan baa baxay anyway waxa dhacday anigu inaan maaragtay CV-gayga aan qoro oo anigaan deeqa ahaan maaragtay intaan CV-gayga qoro aan gudbiyo si maaragtay at least la igu soo jawaabo adigu muddo ka bacday waxa dhacday inaan sawiro badan oo maaragtay aan helay adigu 20 iyo dhowr ilaa 30 qiyaastii dadkii duurka ku noolaa kamid ah marka waxa dhacday marka ilaahay amarkiisa sawirada aan fiirsanaya oo isla dee haddaabad maaragtay noloshii dhinacaas aad ku abuuri lahayd waad gaartay xilligeedii ayaa waxa dhacday Cabdixafiidow wallahi waxba kaama qaranaye waxa dhacday waxaan arkay oo indhahayga ku dhacday nin maaragtay cajiiba oo Soomaalidu waxay u yaqaanaan dadka quruxda badan faras wallahi faras buu ahaa ilaah baan ugu dhaartay sawirradii wallahi ma wada daawan sawirada inaan sii wado oo daawado bay ahayd man daawan waxaan sameeyay waan joojiyay meeshii waan ku joojiyay isaan ku noqday haddana waan fiiriyay
dadkii ii soo diraan la xiriira waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay qofkaas weeye adigu processka la bilowday in la is arko in maaragtay la kulmo ninka cawaanka ahaa muddo kadib waxaa dhacday cabdixafiidow haddaan ku idhaahdo ka waran wallaahi markuu isalaamay ayaan waxaan dareemay inuu ninkaygii yahay qofka ninkii cawaanka ahaa qofku bini aadanka horta qofba wuxuu leeyahay ilaahay baa dadka wuxuu kala siiyaa power qofba waxba uu aada ugu fiican yahay marka anigu waxaan aada ugu fiicanahay dadka waan dareemaa dadka waan fiiriyaa halka taagan baan fiirinayaa wax alaala wuxuu damacsan yahay wax alaala siday wuxuu jiraan markiiba jawiga ama qofkaas wuxuu indhihiisa haddaan qofka fiiriyo indhihiisa iga badan macnaa inta badan dadka waxaanahay dadka hela qofku wuxuu yahay deeqoy sheekadan waxaa rabaa inaan dhowr su-aalood iyo kaa weydiiyo oo muhiim aan isleeyahay daawadayaashu inay fahmaan weeye waxaa tiri ninkaanu soomaalidu dadka aad tilmaamayso oo kale oo aan dharka xiranin oo hawdka ku nool ama miyiga ku nool oo weliba dadkaas indonesiaanka iyo reer indiaanka iyo dadka noocaasa soomaalida waxay taqaanaa cali baystein intaanaan wax kale u gudbinba daawaduhu wuxuu isweydiin karaa deeqa oo gabar soomaaliyeed ah oo soomaali ah oo hooyo aaba soomaali ay yihiin waxa rag soomaali ilaahay badiyey oo diyaar guur u ah oo qaarkood laga yaabo meel ay kusoo mareen inay la yihiin ay jirto qaarkood arjiye kusoo qorteen ninka hawdka ku jira oo maxaa la yidhaahdaa reemihii ma raba inaan dhaho reemihii dadka waxay umalaynayaan miyigeeni iyo dhaqankeeni saad u sheegtay laakiin haddaan udhiga ninka cawaanta ee qaawane wasladihiisii ku daday caleenta aan dharka xiranin maxay deequ ku fashay haddii lagu yidhahdo maxaad odhan lahayd horta waxyaalahan horta qofka qofba waxbaa lagu meel ka abaaraa waxaan anigu horta ninkan waaniga kule jawigii anigu aan jeclaabaan halkaa horta ka raadiyey oo aniga meesha aan ku noolaan lahaay jawigii iyo dhulkiibaa horta ii geeyey markii ugu horeysay tan labaadna dee soomaalidu waa walaaladay waxa weyn waa dee soomaalida anaaba soomaali aba soomaalida raggeedana rag ka wanaagsan ma jirto walaalo laakiin muhiimadda waxay tahay waxaan isiri yara kaftame qofka soomaaliga ah wixii kuma adkaysto wuu xiisayaa waxaan isir 5 sano markuu kula noolaado ama iska soo noqdaayo isiraahda maarta soo daala marka dad xoogaa serious ma nihin saasaa keentay xoogaa inaan baadiye lama geyn karo qofkii maarta soomaaliga haduusan awal joogi jirin nolosha lagama bedeli karo ana waxaan ku talagalay inaan nolosha si toos ah macnaha aan anigu nolosha iska bedelo qofkaygana nolosha bedelo haddii aad u guurtid oo hadda halkaas u guurto oo Sweden ka tagtid oo meesha hawdka ay dadka cawaanta ay ku nool yihiin aad tagtid adigoo dharkaagii qabo iyo dhaqankaagii wataan meeshii ka degaysaa dadkiina dhaqan kale iyo waxay wataan si kale u labisan yihiin ama aan idhaahne maba labisnaba waa sidii hooyadu u dhashay oo caleen bay saartaan cawradooda maxaad aad arrintaa ka yeelaysaa والله هرتي محن كده هاي توارونه إن يربي هالكاس مارت يرى أتكان دونتا لكن دوا وحن كنت على جلايا واني بقوله نلاشان مارتي بلا رحمة أهو ونربى القباء تلفون بصاد عيا تيفي بدارن أو نيوز كدارن هذا شقة كلها إن قبر بالك في صدي نبى نندلي أو مارت مهم أديك مركا قوة هنا شقة بعضهم كلها marka horta anigu waxaan halkaas free waxaan u doonanayaa nolol free halka u raadsaday ma fahanteen marka kulli caleentan la gashanay anigu duurkaasna waan joogaya insha Allah in yar guri yar oo ma sha Allah iyo ma aragtay gacantaada ku dhisatay sariir yar gacantaada ku samaystay ma aragtay alaabta xitaa gacantaydina ku samaysto dharkana de caleenta un bay noqonaysaa insha Allah sababta waxaan ka cararayaa marka noloshan pressure-ka iyo telefoonka iyo biilasha iyo korontada iyo gawaarida iyo saxmadda wata ka cararaysaa